guddigii iyo dadaalkii iyo halgankii dheeraa ee uu soo galay inuu fariisto aqalka ugu sarreeya ee laga go'aamiyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed si uu ummadiisa ugu adeego. waxaan markaa codkayga ku biirinayaa hambalyada waan u ducaynayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa si wanaagsan ugu adeega imaatinkiisuna ay wax weyn kusoo kordhiso Soomaaliya. waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo bahda warbaahinta oo runtii aan aaminsanahay sanadkan inuu yahay sanad guuleed oo dad badan ay soo galeen baarlamaanka oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed taasoo runtii macno iyo qiimo weyn ugu fadhisa bahda saxaafadda oo anigu aan aaminsanahay weli in aan doorkii ama kaalintii ay mudnaayeen ee bulshadan ay uga jireen aan lagu maamuusin oo waxa ay mudnaayeen aan helin marka la fiiriyo kaalinta ay uga jiraan badbaadinta dalkan dhinac kasta iyo dowladiska Soomaaliyeed. waxaan markaa aaminsanahay in Nuuridiin iyo saaxiibada kaleeto Fiyoore iyo Macallimo iyo saaxiibkay Cismaan Dube iyo wasiir maareeye kabiirkii weynaa maaragtay warbaahinta iyo dadka la midka ah sanadkan waxaan u malayn doonaa baarlamaanka mikrofoonku inuu ku yaraan doono insha Allahu tacaala. rag hadal yaqaan ah oo badan ayaa soo galay, rag badanna way ku jireen. marka waxaan rajeynayaa insha Allahu tacaala in ay fursad u noqoto saxaafadda Soomaaliyeed oo waqti muhiim ah ku jirta sida dalka Soomaaliya oo waqti muhiim ugu jiro, waqti ay shuruucdoodii dhamaystirmayso, waqti muxuu ahaa ay samaysmayeen hay'ado warbaahineed oo dalkeena hore aan ugu lahayn oo ay ka mid tahay muxuu ahaa maqaamka warbaahinta qaranku ay yeelanayso, warbaahinta private-ka, regulationska iyo shuruucda kaleeta ee loo baahan yahay. runtii dad fahmi kara oo xirfad ahaan yaqaana oo garan kara arrintaasi miisaanka ay u leedahay inay baarlamaanka soo galaan waa wax aad iyo aad u weyn. sidoo kale saxafiyiinta Soomaaliyeed oo duruufo adag la nool oo u baahan runtii xuquuqdooda in la cayimo, in la difaaco, in xorriyadooda iyo garaadkooda iyo kartidooda iyo awoodooda intaba la horumariyo, in dad u xog ogaal ah ay meesha soo galeen iyadana waa runtii fursad aad iyo aad u weyn. saaxiibadayna waxaan Nuuridiin iyo ragga midka ah leeyahay xujo weyn baa idin dul taalla. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin fududeeyo. waxaan rajeynayaa in saxafiyiinta Soomaaliyeed aanay ka cabadoonin matalaan la-aan insha Allahu tacaala. waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto raalli ahaada maadaama aanan baarlamaanka soo gelin podiumkan ayaa ka xildhibaanada marka haddii warkaygu bato ha laga raalli ahaado. ragga ee dharanaya halkan fadhiya biixi iyo gadaala hadalkii u jira marka ragga aan baarlamaanka imaan doonin ha loo dulqaato. dhalinyarada baarlamaanka soo gashay iyo dadka kaleeto runtii aqoon-yahanka ah waxaan rajeynayaa in ay ku baraarugsan yihiin marxaladda ay kusoo beegmeen oo Soomaaliya u ah marxalad aad iyo aad u halis ah. ereyga kala guurka lama jecla laakiin runtii kala guur dowladeed oo runa ah haddaad fiirisid dhamaystirka dastuurka, muxuu ahaa dhamaystirka shuruucda waaweyn ee dalkan hortaalla, nidaamka dowladeed aan yeelanayno, amni iyo dhaqaale iyo siyaasad intaba sanadihii la qaabayn lahaa inay yihiin sanadaha soo socda, inay runtii mas-uuliyad aad iyo aad u weyn tahay. waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dhinaca kalena runtii inay ka tahay waqti adag oo dhaqamo qallafsan oo siyaasadeed waddanku la kulmay. runtii marin habaabintu waa tiro badan tahay iyo maskax beddelka. waddankeena waxaad ogtihiin in iyadoo dadkeenu iska joogaan niman ajnabi intay yimaadeen dhalinyaro yaryar oo maaragtay naga mid ah si khaldan diinta ugu tarjumeen ay gaarsiiyeen inay isku qarxiyaan dadkii muslimiinta ahaa. taasi markaa waxay ahayd marin habaabin diineed oo aada u weyn. hadda waddanka waxaa ka jirta marin habaabin siyaasadeed oo aan ka halis yarayn midii diineed ee al-shabaab ku dhacday iyo dadka la midka ah oo runtii keentay waxyaabo aan la arki jirin in la arko. marka marin habaabinta siyaasadeed oo laftirkeedu ah wax la soo waariday oo ah in lagu tijaabiyo waxaan siyaasaddeena ka mid ahayn iyo nidaamkeena dowladeed in muxuu ahaa dalku uuna ku laabanin khatar la mid ah midda uu maanta ku jiro ama midda uu soo dhaafay midda uu soo maray sanadihii lasoo dhaafay. waa mas-uuliyad saaran dadka xildhibaanada ah ee u dhaaran doona insha Allahu tacaala. iyagana waxaan leedahay ugu rajeynaynaa inay mas-uuliyad intaas la-eg iyo dareen intaas la-eg ay ku qaabilaan. mar kaleeto walaalkay hambalyo
hambalyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu asturo mas-uuliyadda iyo shaqada weyn